nin kasta oo iswaalaba waabiya hela waa ku daayay Axmed Macalin Fiqi ugu dambeyn xilka ayaa laga qaaday ninkan waliba si qaab daran baa loola dhaqmay ninkii ku caan baxay in uu caayo madaxdii hore ee wadanka ee madaxweyne Sheekh Shariif Xildhibaan Shariif uu yeeray ee caayda iyo aflagaadada xilka ku hayay xilka waa laga tuuray mucaaradkii sidaa bay leeyihiin sidoo kale xog soo baxays waxay leedahay waxaa lagu bedelayaa Saadaq Cumar Xasan oo loo yaqaan Saadaq John ninka sodogo uu yahay Ismaaciil Cumar Geelle ee gabadhiisa ay u dhaxdo ayaa laga dhigayaa wasiirka gaashaandhigga madaxweyne Xashi Maxamuudna hoosta ayuu arrinkaas ka xariiqay warbixin iyo macluumaad cajiib oo cadeymahooda wata ayaan ku soo gudbinayaa Fiqi dhowr jeer oo hore mucaaradku ku raaxaystay waliba qaab aan habboonayn ayuu ula dhaqmay isaga oo wax u muuqda aflagaado ula bareeray laakiin hadda maxaa ku dhacay kursigiisii neecda ahaa ayaa loogu yimid sidoo kale waxaan ku hayaa sayidka oo ah madaxtooyada hoosteeda waxa isku horfadhiya ciidanka ilaalada madaxweynaha Soomaaliya Xashi Maxamuud iyo saraakiil guryahooda la burburiyay oo hub la soo galay xaafadda sayidka xaafado cooshadaha ka hooseeyay xaafadihii ayay damac ka gashay kooxda dhulboobka ee Xasan Sheekh waxaana ay dooneen in ay markaasi dhulkaas qaataan laakiin saraakiisha hubka ayay qaateen waa meel madaxtooyada boqolaal talaabo u jirto oo u muuqato xabada la galo guriga madaxweynaha way gaaraysaa sababtoo ah kalama fogaba aad isugu dhow yihiin haddaba saraakiishaas waan eegaynaa sidoo kale xaafado kale oo Muqdisho ah oo xaafada Sanca oo caanka ah caasimadda iyaduna maanta cagaftii dawladda ay ku jirto laakiin la yaabku wuxuu yahay guryo iyo dhulal sharci ah oo dad shacab ay leeyihiin oo dukumiintiyad bara ayaa la boobaya haddaba yaa weey rag ku hore oo ku soo gudbinaya aragtada noore muuqaalka like saar sina share gareey waa maasantahay xog iyo macluumaad aan helayno ayaa ku waramaya in isku shaandhayn lagu sameynayo golaha wasiirada maalmaha soo aadan uu ku bixi doono Axmed Macalin Fiqi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wasiir Fiqi oo ah laacib siyaasadda ku soo dhex jiray muddo ayaa golaha wasiirada Xamse ee ka soo tirsanaa tan iyo markii la dhisay wuxuuna isu soo maray 3 wasaaradood oo dhammaantood ah ama wasaaradaha loogu jecel yahay waa wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda arrimaha dibadda waa wasaaradda gaashaandhigga oo hadda 3 wasaaradood oo waaweyn ayaa soo martay ninkan waana fursad muhiim ah inkastoo lagu eedeeyay in uu markaasi shaqada qaran ee loo igmaday ka jeclaystay in uu dawladda ka difaaco doodaha siyaasadeed iyo dacaayadaha loo jeediyo iyadoo xilliyada qaarna la arko ama loo arko in uu bayahay afhayeenka dawladda ma afhayeen dawladeeda ma wasiir warfaafina ma wasiir gaashaandhiga ama mid arrimo dibadeed waa lagu wareeray ninkan isbedelkan ayaa markaasi ku yimid sida aan ogaanay heshiiskii siyaasadeed ee ka dhacay Galmudug taasoo xitaa saameysay awood qaybsigii wasiirnimo ee beesha uu kursiga ku matalo wasiir Fiqi waxaana xilkaas lagu heshiiyay ama lagala heshiiyay qoorqoorna wuxuu geysanayaa halkaas Saadaq John oo ay saaxiibo yihiin qaraabana yihiin ila aan shaac baxsanayn ayaa sidoo kale aan ka helnay in madaxweyne Xashi Maxamuud uu quu dareenayo in uu xilka wasiirnimo kula heshiiyo saaxiibkiis ay kala tageen Cabdiraxmaan Odowa inkastoo aanan hubin in Odowa la gaarsiiyay in madaxweynuhu uu sidaas ku fakarayo haddana Cabdiraxmaan Odowa ay aaminsan yihiin dad badan markaasi oo ka agdhow in uusan ahayn nin wasiirnimo qaata si uu markaasi uga taqalluso mabaadi'da isaga iyo birmaduhu ay ku kala tageen uu ku soo bandhigay iscasilaadiisii madaxweyne Xashi Maxamuud xilkan wasiirka Fiqi laga ereeyo ee Saadaq John la doonayo ee lagu heshiiyay qoorqoor uu ugu sii baxay wuxuu rabaa inuu ku raali geliyo xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa xogayihii hore xisbiga JSP ee iscasilay ayuu ku raali gelinayaa baa leeyahay laakiin Odowa ma qaadanayo ay leeyihiin dad badan oo aad u garanayo oo waxay leeyihiin ninkaasi ma quu dareenayo kuraasta noocaana rajana uga ma jirto dad badan ayaa isweydiinaya haddii Fiqi wasiirnimada laga qaado ma banaanka ayaa loo tuuri doonaa balse madaxweyne Xashi Maxamuud oo og shakhsiyadda Fiqi iyo saameynta uu xukunkiisu ku yeelan karo haddii uu noqdo mucaarad ayaa qorsheynaya in la geeyo xafiiska amniga qaranka waxaa laga dhigayaa la taliyaha amniga qaranka lama erayo banaan looma tuurayo xabada rididiisaas iyo buuqiisaas iyo hadalkiisaas la taliyo amni qaran loo bedelaha leh taas uu aaminsan yahay in lagu sabarsiin karo si uusan qayb uga noqon
duminta nidaamkii uu difaacayay 4 sano ee lasoo dhaafay. karaarka ayay bahashu markaan dhaaftay, xaaladuna waa adag tahay, xilalkii baa la iska xayuubinaya, cid loo naxaya ama loo joojinaya habeeraatee ma jirto. waxaa muuqanaysa in madaxweyne xashi maxamuud go-aamo aan inaba caadi ahayn uu gaarayo. aragtidaada noo reeb. geesta kale, sayidka ama xaafadda sayidka ee magaalada muqdisho oo madaxtooyada u muuqata waxaa isku hor fadhiya ciidanka ilaalada madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya xashi maxamuud iyo saraakiil guryahooda la burburiyey oo hub la soo galay xaafadda. dhulboobka muqdisho waxay iska noqotaba wax caadiya oo dadku ay garanayaan, la ogyahay, waana lala qabsaday oo nolosha wax caadiya ay markaas ka noqotay. hadda waxaa leeyahay xaalad culus ayaa ka taagan xaafadaha qaar ee magaalada, waxaana la dareemayaa xaalad taagtaaga. xitaa xaafadaas keliya kuma eko, xaafadda Sanca ee magaalada muqdisho dhulal sharci ahaa ayaa la qaadanaya. dowladuna go-aan adag ayay gaartay.